soo dhawaada asxaabta qiimaha badan maanta waxaan ka hadli doonaa 5 nooc oo loo qaybiyo waalidiinta iyo sida ay ilmaha u koriyaan. haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe dheh si aad ula socoto mowduucyada kala duwan ee aan soo gelin doono. Okay, waalidka ugu horeeya waxa loo yaqaanaa authoritarian parents. haddaba aan tusaale soo qaadano si aad u fahantid. Aisha waalidkeed waa kuwa adag oo jecel inay ilmaha xakameeyaan. aad bay u jecel yihiin gabadhooda, laakiin waxay aaminsan yihiin in ilmaha si adag loola dhaqmo ay ka dhigayso mid dhaqan wanaagsan oo bulshadana si fiican ula dhaqma. Aisha haddii ay oyso waxa loo sheegaa inay aamusto. haddii ay hadal soo celisana waa la garaacaa ama ganaax ayaa garka loo suraa. haddii ay ilowdo inay qaban weydo hawl loo diray, Aisha waxaa gabi ahaanba laga mamnuucaa inay ciyaarto ama ay meel aado. Aisha waxay halkaasi ka baranaysaa inay isku cadaadiso dareenkeeda, waxayna isku dayaysaa inay adeecdo waalidkeed si ay u hesho jacaylkooda ayna uga xanaajinin. si kastaba, maadaama Aisha aan loo ogolaan in dareenkeeda si furan u muujiso, markay soo weynaato waxay u badan tahay inay noqoto gabar aan aqoon waxay si dhab ah u doonayso. waxay bilaabaysaa inay waalidkeed iyo bulshadaba kula noolaato nolol wanaagsan, laakiin gudaha waxay ka ahaanaysaa qof aan faraxsanayn. waalidka labaad waxaa loo yaqaanaa permissive parents. aan tusaale soo qaadano. Axmed waalidkiis aad bay u jecel yihiin, waxayna aaminsan yihiin in Axmed loo sameeyo wax kasta uu doonayo, lana siiyo xorriyad aan xuduud lahayn, sidoo kalena aan weligiis maya lagu oran wax kasta uu doonayo. tusaale ahaan, Axmed hadduusan doonayn inuu socdo, waalidkiis ayaa xambaaraya. haddii uu doonayo inuu game ciyaaro, caawa oo idil ayuu iska ciyaari karaa. Axmed wuxuu weynaanayaa isagoo gabi ahaanba bilaa xuduud ah, wuxuuna sameynayaa wax kasta oo uu u malaynayo inay fiican yihiin. way ku adag tahay inuu la tacaalo khilaaf ama dagaal, waayo lama barin inuu kontaroolo emotionkiisa. maadaama la soo baray inuu helayo wax kasta uu doonayo, waxaa ku adag Axmed inuu aqbalo guuldaro. wuxuu noqonayaa mid aan fikirin oo aan gabi ahaanba ogeyn xuduudiisa. waalidka saddexaad waxaa lagu magacaabaa authoritative parents. haddaba aan tusaale ku sharaxno. Cali waalidiintiisa waa kuwa tixgeliya baahidiisa, laakiin waxay aaminsan yihiin in ilmaha u baahan yahay in la siiyo xorriyad xadidan. Cali si xor ah ayuu u ciyaari karaa, laakiin markuu ciyaartiisa dhammaysto waxaa laga doonayaa inuu hagaajiyo meeshii uu ka ciyaaray. waxaa loo ogol yahay inuu jalaato cuno maalinta Axadda oo keliya. wuxuu TV-ga daawan karaa 30 daqiiqo oo qura maalin walba. marka ay rabsho ama isku dhac imaato, waalidka wuxuu dhageystaa Cali fikirkiisa iyo wuxuu ka dhahayo. kadibna marka la dhageysto waxaa lagu dhaqmaa sharciga guriga u degsan. waalidku ma ciqaabaan, abaalgudna ma siiyaan. Cali wuxuu baranayaa haddii uu la kulmo caqabad ama wax ku adag, in waalidkiis ay siinayaan caawimaad uu u baahan yahay. wuxuu baranayaa sida loogu dulqaato howlaha adag iyo inuu raaco waxa uu xiiseeyo. marka la joogo fasalka iskuulka, Cali waa mid ku dhiirada inuu fikirkiisa ku muujiyo hab wanaagsan. xilliyada break time-ka ama nasiinada, wuxuu awoodaa inuu si xor ah u muujiyo dareenkiisa, uuna u dhaqmo si xorriyad leh. markuu weynaado, Cali wuxuu noqonayaa qof qaadi kara mas'uuliyad kasta oo dusha laga saaro. waalidka afraad waxaa loo yaqaanaa neglectful parents. waa kuwa aan inta badan xaadir ku ahayn nolosha ilmahooda. aan tusaale yar ku faaqidno. Xafsa waxay mar kasta dareemaysaa in lagu cidleeyo dunida. waxay haysataa xorriyad ay ku samayso wax alla waxa ay doonayso, laakiin marna ma hesho wax falcelin, jacayl, naxariis iyo intention kaga yimaada xagga waalidkeed ama cid kaleba. Xafsa waxay ogaanaysaa wax kasta ay samayso inaysan weligeed jirin cid danaynaysa ama kaga mahadcelinaysa. si kastaba, maadaama Xafsa aysan wax intention ama dareen aysan ka helin waalidkeed, waxay keenaysaa inay aamini weydo nafteeda iyo dadka kaleba. waxay noqonaysaa qof hubanti la'aan ah oo ay ku adag tahay inay qof xiriir wanaagsan la samayso. waxay u arkaysaa nafteeda mid negative ah. si ay isaga joojiso dareemidda inaysan u qalmin wax jacayl ah,
waxay isku dayaysaa inaysan waxba isdareensiin gebi ahaanba. waalidka shanaad waxaa lagu magacaabaa over involved parents. waalidkan waa kuwa gebi ahaanba carruurtooda ka ilaaliya inay wax caqabad ah la kulmaan. waa kuwa markasta daba jooga ilmahooda, iyagoo isku dayaya inay la qabtaan wax kasta oo ilmuhu isku dayo inay sameeyaan. maadaama aysan ilmahooda u ogolaan inay iskooda u qabtaan waxay doonayaan, ilmahaasi marna ma baranayaan inay ka gudbaan caqabadaha la soo gudboonaada. baaritaan ayaa lagu ogaaday in ilmaha noocan ah ay gebi ahaanba aysan jeclayn inay xaliyaan waxyaabaha adag. sababtuna waxay tahay iyagoo aan gebi ahaanba lahayn wax dulqaad ah, waxayna ka wahsadaan wax kasta oo u baahan dadaal badan. haddaba si aad u noqoto waalid wanaagsan, ilmuhuna u noqdaan kuwa isku filan marka ay weynaadaan, waxaa kula gudboon inaad ilmahaaga kula dhaqanto si baalansi ah aanba isku dheelitiran oo aadan dhinacna u badan. ugu dambayntii, weligaa ha ka caawin ilmahaaga hawl aad u malaynayso inuu keligiis qaban karo. fadlan si aad ula socoto muuqaalka xiga ama mawduuca xiga, fadlan subscribe dheh kanaalkan oo la wadaag asxaabtaada.